waxaan madaxweynaha iyo xukuumaddaba u soo jeedinaya gobolka awdal way cabanayaan laakiin guddoomiye laba sano oo Soonya lagu qancin kari maayo waxaan leeyahay waxay doonayaan jananada Soomaaliland bay wax ka doonayaan waxay ka doonayaan wasiirada eedaa bay wax ka doonayaan waxay wax ka doonayaan ganacsiga wax ka doonayaan waxay wax ka doonayaan cashuur dhaafka wax ka doonayaan waxay wax ka doonayaan waxqabadka iyo iskuulaadka iyo dalka iyo qaranka wax ka doonayaan waxay wax ka doonayaan Somaliland resource-ka ama shidaal haad ama haat macdan ee ku aasan inay xuquuqdoodii waxooda ay helaan wax ka doonayaan waxaanu leenahay gobolka awdal iyo salal cabashadooda hal loo dhaga luglaado wasiirka laga cabanayo haduu dhibaatada sameeyay de cabinetka dib yaanu ugu sii jirin baan anu runtii ku leeyahay dhalinyaradu waa mustaqbalka ummadda wadadka wax qabadkooda maanta aanu eegayno ee lagu nasan lahaa cid kastoo khilaaf gelisaana annagu waa ka habaarayna taasna waxaanu doonaynaa ciddii dambiga ka dambaysay inay xukuumaddu soo cadayso waa arrin haddaan wax laga qaban dhibaatadeedu ay ka badan doonto oo Hargeysa xaafad inay u kala fadhiisato ayaa meesha lagu talagalay xukuumadda waxaan leeyahay dhalintuna dhalintii horeynu naqaanay maaha meesha yaan la isku ilka beeline si fiican loo dhaxweeyaan mudane madaxweyne way ku ogtahay dalada dhalinyarada Soonya iyo guud ahaan dhalinyarada Somaliland waxqabadkaagii ballaarnaad kor ugu qaaday sidaan hore u sheegay way ku ogtahay waxa weeyaan dalada dhalinyarada Soonya waa konsulkii toddobaad ka maanta halkaa lagu aan ku wareejinaynaa konsulka toddobaad mudane madaxweyne lix guddoomiye hore isa soo bedelay mid walba baad dahab u dhalinyarada ka qorayahay guddoomiyaha maanta xilkii ka degay Mubaarak Taani la yiraahdo waa inuu black list kaasi ku jira madaxweyne black list waxaan la kulannay munaasabadaas sida looga tagay oo ah intii badnayd dhalinyaradu inay ku wareejinayso xilkii guddoomiyihii ay soo doorteen marxaati ka nahay oo aanu ogeyn in Soonya la isu keenay tirada badanna ay meel martay laakiin la diiday in codka la qaado lagana hor waxaanu kala marxaati ka ahay ujeedadii ka dambeysay inuu ahaa xukuumaddu inay danteedu ahayd cidda ay doonaysaa haddaanay soo bixin inaanay hoggaan kala Soonyaya waa diiday mana aqbalayno cadaalad looma arkayno ilaahana waa ugu dhawaanayna inaanu xaq u helino وحكومتنا waxaan leenahay oo maanta madaxweynuhu koow ka yahay miyaad ka maaranteen majority-ga dhalinyarada maanta Soonya waa meel laga barto maamul wanaaga wada lahaanshaha hogaaminta fiican wasiiradana waxaan leeyahay maanta ha ku mashquulina Soonya iyo burburinteeda laakiin ku mashquulina nin walba inaad wasaaradda hagaajisato waxaan leenahay wadanku khalkhal ma baana sinaan iyo cadaalad iyo midnimo baahaya iyo nabadgelyo nishalaysan oo baana waxaan leeyahay anigu macaarid warigeeyo ma noqon macaarid ma nin maxaafidaan ahay daba waxaan leeyahay aan maxaafidka ahaadee haddana sinaan iyo cadaalad iyo midnimo ayaanu doonaynaa tan dalada heer qaran ee Soonya ee la soo aasaasay 2003 waxa loo aasaasay 3 ujeedo oo kala ahaa in dalada Soonya ay isdhex geliso dhammaan dhalinyarada Somaliland min bari ilaa iyo galbeed taasoo loogu talagalay inay qabyaalada lagaga joojiyo in qof jeclaysiga lagaga joojiyo inay saa dhalinyarada isku wada dhex galaan wuxuu ah qodobkii koobaad ee Soonya loo aasaasay qodobka labaad ee Soonya loo aasaasay wuxuu ahaa kobcinta xirfadaha dhalinyarada in dhalinyarada aqoontooda la dhiso in xirfadooda la dhiso in kor loo qaado kartida iyo aqoonta dhalinyarada qodobka saddexaad ee Soonya loo aasaasay wuxuu ahaa in wixii dhib ee dhalinyarada haysta iyo wixii aan markaa gar ku ahayn inay ka doodaan oo ay markaasi hirgeliyaan saa la wada socotaan aan waxaan ka mid ahaa konsulkii shanaad ee qolada imika xilka doonaysa in la ambatay maaragtaani ku koow yahay xilka ku wareejiyay ee saaxiibadeeda halkan joogay konsulka imika ay ka soo reebeen tiimkii xilka ku wareejiyay baan ahaa waxaad ogeedeen barigaan aan Soonya joognan konsulka ka ahaa waxyaabahan wax qabadka weyn ka muujinay waxa ka mid ahaa
xeerkii dhalinyaradu ay ku galeen golaha deegaanka saaxiibadii halkan laga jooga tiimkii hoos u dhigay baanu ka mid ahayn waliba fikirkii hoos loogu dhibay wuu duuban yahay iyo barnaamijkii hoos loogu dhigay arrinta qofkii dejiyay aniga ayuu ahaa asxaabteedina oo wada ogeyd kolley iyadoo duumanna maalmaha soo socda ayaan media ka soo dayn doonaa soonyo 2003 markii la soo aasaasay waxaan ku soo biiray 2 sano ka bacdi 2005 ilaa 2005 ilaa maanta soonyo waan ku soo dhex jiray shaqadeedii koowaad baan ka soo bilaabay koonsilaan ka soo noqday waxaan u maleynayaa tacabka ugu badan qofka uu sooyo kaga jira inuu aniga intay la midka yahay saaxiibadayda kale ee hadda doonaya soonyo inay la numaan aqoon badan uma laha wax badan kama yaqaanaan waxa ugu weyn ee maanta doonaya inay ka baxsadaanna waa in lala xisaabtamo gudoomiyenimada iyo arrimaha kale waa meelo lagu gabanayo waxa weeyaan Siyaad Cali Cumar wax badan ma oga waa inaan iska wanaagsan laakiin rag baa ku gabanaya aan doonayn inay xisaab la yimaadaan waxaana maanta idin ballan qaadaynaa in dalladii soonyo majaraheedii waa laga habaabiyey qabyaaladii baa dhalinyaradii lagu badiyey dhibkii baa lagu badiyey isdhexgalkoodii iyo tacabkii badnaayeen u geysanay dhib ayay kala imika lagu wadaa waxaan idin ballan qaadaynaa inaan waxaas oo dhan ka soo badbaadin doono